markii aan soo qaadano hooyada Soomaaliyeed hooyada muslimka oo dhan saddex darajo oo xaquuqa ayay ku leedahay ragga ama awlaada aduguna kan afraad oo ka soo haray oo leeyahay Soomaa weynaynta la weynaynayo wax kasta oo la amaanayo ama magac weyn la waxa haysta waa ayada dhulka hooyo afka hooyo dhaqanka hooyo hidaha hooyo wax waliba waa taa kelmad kale oo aan wada fahmina xaq suugaan la fahmina waxa jirta hooyada ka weyn hooyo macnaheedu waxa weeye hooy way guriyo hooyo wala fahmaysaa laakiin kelmad ay ka wada xanaaqaan oo ah habarta ayaa taa ka darajo weyn af Soomaaligu waxay u baahan tahay wax dadka dhadhan siiyo kelmadu habar weey horta waa ina ogaataan ayadoon iskuul dhigan oon jaamacad dhigan oon PhD gaarin oo sida hadda aad mutacallimiinta u waratiyin ahayn ayay kaligeed macallin ahayd Soomaa kelmada habar si fiican u dhadhansada qofku marka uu dunida yimaado uurka hooyo ka soo baxo talaabta ugu horeysa ee uu qaado waa naaska in lagu habo Soomaa oo afka la aado naas iyo far iyo gacan iyo jilib ma yaqaan soo iska malafsanaya yaa barayo ku aadiyay habarta darajada labaad ee loo dalacsiinayo marka uu intaas naaskii waday oo raashinkii la baray talaabta uu la dhacdhacayo istaago oo saan leeyahay hab gacanta soo taagtay yaa baray habkaas habarta tan saddexaad waxa weeye hab dhaqanka oo dhan si uu isu nadiifiyo sida uu musqusha u galo si uu dharka u xirto si uu u lebisto si uu akhlaaq fiican ugu hadlo si uu aabo iyo hooyo u kala garto maaba wax baramise cid kale habarta waxaan ka codsan lahaa dadka aqoon-yahanada ah ee jaamacada dhigaha manhajyada soo socda inay ku daraan kelmadda habar inay tahay kelmad darajo weyn aysan habare waa habar jinnibi yaaba habar ku yiri habare waa habar jinnibi yiraahdo af Soomaaliga waxa uu ka qaldan yahay gobolaha balaa wata iyo gobolaha balaa qoray iyo waxa sama jiraane dhadhamiya oo sida uu dhadhamo marka uu sax yahay hal la isticmaalo dadka hal abuuraha oo murti yaqaan kana iyo aqoon-yahankuna ka wada hadlaan